waa hagaag qaybaha hore ee caalamul yoom ayaad dhegeysanaysaan. afartii maalmood ee lasoo dhaafay waxay warbaahinta caalamiga hadal haysay boqortooyo looga dhawaaqay xuduud beenaadka ay wadaagaan wadamada Suudaan iyo Masar. boqortooyadan oo dad badan ay u arkaan mid dhalanteed ah oo aan soo dhaafin baraha internetka iyo warbaahinta ayay dad badan jawaab celino ka bixiyeen. haddaba si aan wax uga ogaano boqortooyadan iyo waxa laga damacsan yahay waxa wax badan kala socday oo soo indheeyay Bishaar Cabdiraxmaan oo kamid ah soo saarayaasha barnaamijka Caalamul Yoom. waa mahadsantahay Maxamed Xasanow. boqortooyadan waxa looga dhawaaqay dhul xuduud ah oo u dhaxeeya wadamada Masar iyo Suudaan ee dhaca qaaradda Afrika, waxaana loogu magac daray boqortooyada Jabalul Asfar ama Yellow Kingdom. waxaa lagu dhawaaqay boqortooyadan 6dii bishan, waxaana laga iclaamiyay shirka Odessa ee ka dhacay wadanka Ukraine, halkaas oo ay ku kulmeen in badan oo kamid ah madaxda caalamka. dad badan ayaa isweydiinaya dhulkan muxuu yahay, xagee ayuu ka yimid, sidayse suurtagal ku tahay inay iskaga aamusaan wadamada Suudaan iyo Masar dhulka laga dhisay boqortooyadaasi intuu la egyahay masaaxadiisa iyo arrimo noocaasa. baaritaan ayaan ku sameynay arrintaas, waxaanan ogaanay boqortooyadan dhulka ay ku taalo markii hore waxaa la oran jiray mandiqada Bi'ur Dawiil, waxayna u dhaxaysaa wadamada Masar iyo Suudaan, taas oo hadda laga dhisayo boqortooyada la magac baxday Jabalul Asfar. adduunka waxaa ka jiro 3 dhul oo sidan oo kaleetood ah, waxaana loo yaqaanaa al-ardul mubaaxa. dhulalkan waa dhul bannaan, wax sheegta oo dawlad ahna ma jirto. boqortooyadan dhirkeeda waxaa lagu qiyaasi dhulka ay ku fadhiso ilaa 2060 kilomitir oo square ah. haddii aan taariikhda dib u xasuusanana dhamaadkii qarnigii 19aad Ingiriiska wuxuu gumeystay Masar iyo Suudaan, waxayna ka mid noqdeen imbaradoriyadii Ingiriiska ee mar la oran jiray qoraxdu kama dhacdo. laakiin 1899kii ayuu Ingiriisku go'aansaday inuu xuduud u kala sameeyo labadan dawladood oo ah Suudaan iyo Masar si ay u qaybsadaan dhulka iyo maamulkiisa intaba. wuxuuna qayb ka ahayd qorshaha qayb iyo xukun. kaasoo qayb ka ah qorshaha qayb iyo xukun. wuxuuna go'aansaday in xadka kala qaybiya labadan dawladood uu noqdo waxa loo yaqaan 22 ee lagu kala qaybiyo xuduudaha. intaas kadib waxay garwaaqsadeen in kala qaybintan ay dhibaato ku keeni karto dadka deegaanka, gaar ahaan qabaa'ilka la yiraahdo Beja iyo Cabaa'ida ee mandiqadaasi dega, kuwaas oo ahaa beeraley iyo xoolo dhaqato. arrinkaas ayaana meesha ka saaray markii dambe xuduudii uu sawiray Ingiriiska 1899kii. 3 sano kadib ayaana dib loo sawiray xuduudda kala qaybsan labadan dawladood. dhulkii ay qabaa'ilkan digi jireen ayaana markaas lagu daray dhulka ay Suudaan haysato, laakiin Masar arrinkaas way iska diiday. waxayna xaqiijisay inay aqoonsan tahay xuduudii horey loo dhisay 1899kii, halka Suudaanna ay ku dhigtay sawirkii dambe ee dhacay 1902 3 sano kadib markii uu dhacay heshiiska hore. arrinkan ayaana keenay mushkilado dhowr ah oo ay ka mid tahay in masaafo dhuleed oo dhan 2060 kilomitir oo u dhaxeeya xuduudan ay meesha ka soo baxdo, taas oo cid sheeganaysa aysan jirin, labada dawladoodna ay inkarsan yihiin. sidoo kale waxaa jiro mandiqad ku dhigan midan, taas oo ay labada dawladood isla sheegtaan, balse mandiqadaasi waxay leedahay dhul xeebeed, taas oo ay doonayso dawlad kasta inay ka faa'iideysato. laakiin mandiqadan Bi'ru Dawiil ma lahayn wax bad ah, sidoo kale ma lahan webi, wax manaafacaad gaar ahna ma lahan, waana dhul saxra ah. taas ayaana fududeysay inay labada dawladoodba iska inkiraan lahaanshaheeda. nin lagu magacaabo Jeremy Heaton ayaa sanadkii 2014 booqday mandiqada, wuxuuna kaga dhawaaqay boqortooyo oo ugu magac daray waqooyiga Suudaan. sababta ku riixday boqortooyadan ayuuna sheegay inay tahay in mar uu arko gabadhiisa oo boqorad ah, maadaama ay jeceshahay boqornimada. saas ayuuna kaga dhawaaqay boqortooyada. balse waa nin gaal ah oo dhul muslimiintu ay leeyihiin dawlad ka dhigay. yes, Jeremy Heaton ayaa la yiraahdaa, nin caan ah waaye. balse markii dambe wuxuu waayay ictiraaf dawli ah, maadaama uu waayay labadii tiir ee asaasiga u ahaa aqoonsiga dawladeed. labadaas tiirna waxa ay kala yihiin dawlad iyo dad ku hoos nool intaba. ninkaasuna ma aanu haysan, sidaas ayuuna ku fashilmay hirgelinta boqortooyadiisii. haddana waxaa soo baxday hirgelinta boqortooyadan cusub, taas oo yididiilo hor leh xambaarsan. ilaa haddana lama shaacin ninka uu yahay, magaciisa iyo wadanka uu ka soo jeedo ninka boqorka ka noqonay. Bishaar waxaad noo bidhaaminsaa yaa ku dhawaaqay xukuumadan meel aan hayn shabakadaha bulshadana dawladani ma ka jirtaa mise? waa mahadsantahay Maxamedow. boqortooyadan horta waxaa looga dhawaaqay shirkii Odessa ka dhacay 6dii bishan September aan ku guda jirno. waxay leedahay wasiiro arrimo dibadeed, waxay leedahay ra'iisul wasaare, waxay leedahay wasiir arrimaha gudaha, waxay leedahay wasiir ganacsi, waxay leedahay wasiir dhaqaale, waxay leedahay wasiiro oo qorsheynta iyo dhismayaasha iyo qaabilsan qayb tiknoolajiyada ayay leedahay. mashruucan horta markii dhinac laga fiiriyo wuxuu og yahay mashruuc laga soo wada shaqeeyay, inkastoo hadda weli uusan dhulka ka jirin, laakiin mashruuc la dhisay oo hirgelintiisa bas ay dhiman tahay uu indha eg yahay. halkee ka soo jeedaan wasiiradan iyo mas'uuliyiintan aad sheegtay ee dawladdan u leedahay? inta aan ka ognahay wasiiradan iyo mas'uuliyiinta hadda la sheegay waxaa ka mid ah haweeney ra'iisul wasaare ka ah mashruucan.
haweeneydaas ra-iisul wasaaraha ah asal ahaan waxay kasoo jeedaa dalka lubnaan laakiin hadda waxay haysataa dhalasho amerikaan ah waan gartay wasiirada kaletood barahooda twitterka iyo facebooka iyo way samaysteen laakiin ashkhaasta iyo cidda ay yihiin ilaa iyo hadda lama shaacin soo lama dhihi karo waa dowlad magacuyaal ah markii dhinac laga fiiriyo waa la oran karaa laakiin marka la fiiriyo baaxadda mashruucan uu leeyahay iyo qarashka ku baxaya iyo qaabka ay wax ku socdaan iyo ictiraafka uu ka helay iyo meesha ay kasoo muuqdeen dadka madaxdiisa ah waxaa la dhihi karaa dowlad sal adag ku yeelan doonta mandiqada ay weyn eg tahay dowlad ku sheegtani ma soo bandhigtay mashruuceeda iyo waxa ujeedka iyo waxa uu yahay ujeedka laga leeyahay dhismaha dowladdan haa waxaa jiray taqriir kooban oo ay soo dhigeen bartooda twitterka maamulkan wuxuu ku sheegay in hadafkooda uu yahay dejinta ama deegaameynta dadka qaxootiga ah ee ka kala yimid inta badan wadamada carabta intaas ayay ku horumariyeen laakiin waxay xuseen in dadka afrikaankaana ay qayb ka noqon doonaan muwaadiniinta wadankaasna waxay sheegeen inay siin doonaan dhalashada wadanka ama baasaboorka wax loo yaqaano kuwaasoo noqonaya dadka qaxootiga ah ee kasoo baxay wadamadooda ay dhibaatada ay ka jirto sidaas ayay hadda sheegeen waxay ka hadleen mashruucooda dhaqaale iyo waxa uu ku tiirsanaan doono iyagoo xusay in dabiicada ay ku tiirsanaan doonaan beerashada mataqaanaa waxyaabaha lamidka ah dhismayaasha iyo wixii lamid ah sidoo kale waxay sheegeen in hadafkoodu uu yahay in sanadka 2030 meesha lagu gaaro mashruucoodu uu isku bedelo aragtiyada cusub ee dhammaan dowladaha caalamka ay qaateen taas oo ah aragtiyada ku tiirsan dalxiiska iyo bin salmaan oo kale mashruuc sidaas ayay sheegeen inay wax ka dhaqan gelin doonaan waxaana xusid mudan in qarashka ku baxaya mashruucan ee balaayiinta dollar ah la sheegay inay ka dambeeyaan dad milyaneero ah oo kasoo jeeda wadamada carabta waan gartay jawaab celino kala duwan oo la bixiyey waxaan arkayay in arrintan ay ubuucda ugu weyn laga leeyahay ay tahay safqatul qarni heshiiskii dhulka Filistiin lagu boobayay in muslimiinta la soo barakiciyo dhulkan bahgooyahana la dejiyo dhulka barwaaqada shaamna la dejiyo yuhuuda arrinkaas waxa u eg bayaanka dowlad ku sheegtan ma laga dareemay bayaanka kasoo baxay boqortooyadan isku magacaawday Yellow Kingdom waxaa laga dareemayay inuu si gaar ah focuska u saarayo qadiyadda carbeed gaar ahaan dadka Falastiiniyiinta wuxuu ku celcelinayay dadka carabta ah ee kasoo barakacay guryahooda ee aan haysanin hoy iyo hoyaad aan haysanin ayaan dib u dejin u samayn doonaa mana xuseynin dadka afrikaanka si gaar ah uma uusan xuseynin markii la fiiriyo qaabka uu bayaanku ugu celcelinayay qadiyadda Falastiin ama focuska uu saarayay waxaa la dhihi karaa mashruucan wuxuu qayb ka yahay safqatul qarni gaar ahaan wuxuu ku soo aadaya markii tadbiic al-cilaaqaat maca al-yahuud dowladaha carabta ay u safteen oo ay dhammaantood ka midoobeen meelna kaga soo wada jeesteen dhaqangelinta mashruucaas lana meel mariyay qaybtii hore heshiiska loogu magac daray safqatul qarni taas oo ku fadhiday in dadka Falastiiniyiinta ah loo yeelo meel ay degaan mashruuci hore wuxuu ahaa in gobolka Saynaa ee saxaraha ah ee wadanka Masar ka tirsan la dejiyo wajiga labaad wuxuu ahaa Canada oo maalin dhow hadashay waxay sheegtay 100,000 oo Falastiiniyiin ah ay daanta galbeed ka qaadi doonto waxa mashruuca saddexaad hadda soo baxaya wuxuu yahay dhulkan balaaran ee saxaraha ah ee Suudaan iyo Masaarida u dhaxeeyo in laga dhiso magaalooyin lana soo raro dadkaas Falastiiniyiinta ah oo meeshaas mandiqadaas la dejiyo dabcan jinsiyada bixinta waxay ku xireen shuruudo dhowr ah ilaa iyo haddana ma aysan faahfaahin shuruudaha dadka lagu qaadanayo waxay sheegeen inay dhowaan shaacin doonaan dabcan waxaan ka warsugaynaa qadiyadaasna waxay ka yiraahdaan ayaa sii babayaanin doonta mashruucan iyo wuxuu yahay heshiiska loogu magac daray safqatul qarni ee la doonayo dhulka Filistiin lagu boobo waxaa ka mid ahaa in qayb ka mid ah Masar gaar ahaan dhulka jiidarada ee Saynaa dadka Falastiiniyiinta la dejiyo haddana waa dhaqan galayba oo maamulkan Cabdilfataax Siisi 2016 wixii ka dambeeyay wuxuu bilaabay inuu dadka Masaarida ka soo barakiciyo deegaanada dhaca xuduudda sida Rafah iyo meelaha la midka ah wuxuu burburiyay dhammaan hantidii ay dhulkaas ku lahaayeen beerihii guryihii kulli wuxuu la simay dhulka mashaariicda jirana waxay tahay dib u dhis in meeshaas laga sameeyo markii dadkan Masaarida laga soo barakiciyo Falastiiniyiinta la dejiyo marka waxaa dhici karta leeyahay in dowladdan loogu magac daray boqortooyada Jabalul Asfar Falastiiniyiinta halkaas la keeno waa baciid maahan arrin la fogeysan kara maaha mashruucan inuu qayb ka yahay ay u badan tahay laakiin waxyaabaha la yaab kale ayaa waxay tahay in boqortooyadan ninka maamulaya aan magaciisa la shaacin dhaqaalaha meeshuu ka imaanaya inaan si rasmi ah loo shaacin cidda tamwiilinaysa iyo aan la sheegin in dowladaha carbeed jaamacad al-carab la oran jiray ama ha ahaadaan Masaaridii oo daris la ah ama ha ahaadaan Suudaaniyiintii inaysan ka hadlin qadiyadan oo ilaa iyo hadda aysan ku haynin wax xanuun ah ma jiro saxafi ama naashid iclaami ah ama siyaasi ama diblomaasi qadiyadan ka hadlayo
arrinkan ama taageeraya ama dhaliilaya ilaa waqtigan la joogo hadda waxay sii maraysaa 6 maalmood inta ay dhisan tahay waxay leedahay baraha bulshada ansaar xoogan ay ku yeelatay dibba oo waxaad arkaysaa markiiba in akoonadoodu ay buuxaan oo kumanaan kun ay markiiba yeesheen waxaad arkaysaa in dhaqangalkooda iyo tafaaculkooda uu yahay sidii qaab dawladeed مثلا waxaan arkayay wasiirkooda arrimaha dibadda oo leh waxaan ka qayb gali doonaa shir looga hadlayo arrimaha cimilada oo dhawaan ka dhici doono mataqaanaa wadankan Mareykanka ka dhici doono 2020ka shir baa dhici doona ay yiraahdeen shir baa dhici doona Odisa halkaas si rasmi ah dawladaha caalamka looga iclaamin doono aqoonsi lagu siin doona sida ay sheegayaan waan gartay 2030 kana waxay leeyihiin waxaan bilaabi doonaa dib u dejinta dadka sababtoo ah dhulka hadda waa mandiqad saxara qaaxil ah ilaa ay hadda waxaa jirto tasamiimtii waxaa la diray injineero waxaa la diray dad aqoon-yahano ah farsamayaqaano ah waxaa la taqdiidinayaa qaabkii dhismaha dhulkaasi uu noqon lahaa iyaguna waxay leeyihiin 2030 meesha lagu gaaro waxaan bilaabi doonaa in aan soo dejino dadka ka horna waxay bixin doonaan jinsiyadaha dadka dhulkaas degi doona dadkana waa dad adduunka dhaafiis laga keenayo gaar ahaan sida sheegtay mandiqada loo bixiyo bariga dhexe oo loolanada ka jira aad u xoogaysan muslimiinta lagu kadeedayo markii si guud qadiyadan loo fiiriyo waxaad is dhihi kartaa qadiyadan waa qadiyad Mareykanku uu wajiga ka dadbanayo laakiin isagu gadaal ka riixayo tamwiilinteeda haday tahay fangaraynta dhaqaalihii ku baxayay iyo qorsheynteedaba in Mareykanku uu ku lug leeyahay meeshan way iska cadda aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa Bishaar Cabdiraxmaan oo barnaamijka la qayb galayay بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى 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 كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى 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 ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى